Soo dhawaada saaxiibayaal warka ugu weyn aan caawa idiin hayo waxaa ka mid ah Manchester United oo war culus ka soo yeeray balse intaan kula wadaagin warkaas waxaan kaa codsanayaa marka hore inaad muuqaalka like saarto si uu meel fog u gaaro haddii aad nagu cusubtayna nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Manchester United ayaa ku dhawaaqday inay dhimi doonto shaqooyin kale si ay dib ugu habeeyso qaab dhismeedkeeda taasoo qayb ka ah dadaalada lagu horumarinayo dhaqaalaha kooxda iyo kor u qaadista habsami u socodka howlaha maamulka. Bayaan ay Isniintii soo saartay kooxda Red Devils ayaa sheegtay in la filayo in shaqooyinka 150 ilaa 200 la dhimo iyadoo go'aanka ugu dambeeya laga sugayo wada tashiilo la yeesho shaqaalaha. Manchester United ayaa sheegtay in qorshahan uu yahay mid lagu doonayo in kooxda dib loogu celiyo faa'iido helka kadib 5 sano oo xiriir ah oo khasaare dhaqaale oo loo diiwaangeliyay tan iyo 2019 iyadoo ay qayb ka tahay tallaabooyin dheeraad ah oo lagu horumarinayo xasiloonida dhaqaale ee kooxda iyo hagaajinta waxtarka howlaha maamul. Qorshaha dib u habeynta wuxuu ujeedkiisu yahay in kooxda dib loogu celiyo faa'iido helka kadib 5 sano oo xiriir ah oo khasaare dhaqaale ay la kulmayeen. Tani waxay abuuri doontaa aasaas dhaqaale oo adag kaasoo kooxda ka caawin doona inay maalgeliso guulaha kubadda cagta ee ragga iyo dumarka iyo sidoo kale horumarinta kaabayaasha kooxda. Qayb ka mid ah tallaabooyinkan kooxda waxay filaysaa in shaqooyinka qiyaastii 150 ilaa 200 la dhimo iyadoo wadatashi lala sameynayo shaqaalaha. Man United ayaa 250 shaqo hore u dhintay sanadkii hore. Go'aankan ayaa yimid kadib barbarihii Man United ay la gashay kooxda Everton kulankii ugu dambeeyay ee Premier League toddobaadkan. Manchester United ayaa markii ugu dambeysay ku guuleysatay horyaalka Premier League sanadii 2012 waana xilligii uu tababaraha u ahaa Sir Alex Ferguson.